kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. dowladda Soomaaliya ayaa maanta war saxaafadeed ay soo saartay isaga fogeysay eedeymo dhawaantan ka soo baxay guddi qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunaqabataynta Soomaaliya iyo Eritrea. baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo qaybiyay hindisa sharciyeed ku aadan hawada iyo saadaasheeda iyo duulimaadyada Soomaaliya. baarlamaanka Puntland maanta waxa ay ka doodeen qaabka ay ku iman karaan xildhibaanada cusub haddii uu dhamaado waqtiga ay jirayaan xildhibaanada iminka ee maamulkaasi Puntland. banaanbax rabshado wata ayaa ka dhacay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud iyadoo dadkuna ay ka cabanayeen ganacsatada deegaankaasi oo diiday lacagihii dadka isticmaali lahaayeen iyagoo sheegay inay yihiin lacagahaasi kuwa faansi ah oo aan shaqaynaynin. wararkeena kale ayaanu idiin soo gudbin doonaa oo ay ka mid yihiin isboortiga oo aanu idinkugu hayno xubno ka mid ah kooxda Barcelona oo magacowday macallin cusub iyo waliba kooxda Chelsea oo dalab cusub oo lacagta ay kordhisay u gudbisay Manchester United si ay uga hesho ciyaaryahanka Wayne Rooney.